marwada koowaad ee dalka Marwe Zainab Cabdi Macalin oo magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ku timi socdaal ku qotomay ka jawaabidda baahida bulshada magaaladan waxaa garoonka diyaaradaha Baraawe ku soo dhaweeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka iyo qaybaha bulshada Baraawe. marwe Zainab iyo madaxweyne Cabdicasiis oo ay weheliyaan wasiirada gargaarka iyo haweenka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa wadajir u dhagax dhigay dhismaha xarun loogu talagalay daryeelka caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka oo ay hirgelinayso hay'adda qayriga ah ee Zainab Macalin Foundation. dhismaha xaruntan caafimaad ayaa dhawaan bilaabanaya waxaana adeegyadeeda si bilaash ah looga faa'iideyn doonaa shacabka magaalada Baraawe oo xilligan baahi weyn u qaba helidda adeegyo caafimaad oo tayo leh. waxaan ku suganahay maanta magaalada Baraawe wafdi ay hogaaminaysa marwada koowaad Marwe Zainab oo ma aragtay kamid ah juhudiyadii ay bilowga ay hore u ballan qaaday ayay ku fulisay maanta oo ah inay dhagax dhigto MCH oo loogu talagalay haweenka iyo dhallaanka in lagu badbaadiyo marka tanna waxay kamid tahay arrimo kale ay soo wado. madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo marwada koowaad ee dalka uga mahad celiyay dhagax dhigga mashruucan dhaxalgalka ah ayaa ka warramay sida bulshada Baraawe ugu baahida qabaan helidda adeegyada caynkani oo kala ah. hooyada iyo dhallaanka ma haysanin MCH iyo isbitaal ay ku dhalaan haddana daruufta jirta waxay ahayd ma la haysanin meel loo baxo oo isbitaal waxa ugu horeeyay xamar ayada naftirkeeda 200 kiiloomitir oo isku wareegsan yay isbitaal u tahay oo baadiyaha laga soo aadaa looga soo lugeeyaa gaari dameer lagu yimaadaa. aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maama soo dhawow ku soo dhawow dalkaadii iyo dadkaadii iyo meel laga jecel yahay adii waftigaadaba aad iyo aadaan ugu faraxsanahay imaashahaada waxay noo tahay farxad waxay noo tahay sharaf waa sahan fiican iyo bilow fiican oo u bilowday dadka reer Baraawe. marwada koowaad ee qaranka oo sheegtay in dhismaha iyo qalabeynta xaruntan lagu dhameystiri doono sanadkan ayaa ku bogaadisay maamulka degmada Baraawe iyo bulshada ku noolba sida ay ugu heelayeen horumarka iyo amniga magaalada. maanta waa maalin taariikhi ah waxaan si wada jir ah u dhagax dhignay dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxay gaar u tahay shaqo aan isu xil saaray oo waqti dheer igu qaadatay inaan soo diyaarino waxaana rajaynayaa in uu guuleysto inta ka hartay sanadkan. xaruntan caafimaad waxay gacan muuqata ka geysan doontaa haddii alla idmo yareynta umul raaca iyo guud ahaan qataraha caafimaad ee hooyada la kulanto. mashruucan xarunta aan ka dhisayno waa dan guud cidna ma laha waxaa la rabaa in aad qaybtiina ka geysataan maamul ahaan iyo shacab ahaan gacmo wadajir ayay wax ku gooyaan. mar kale waxaan fariin u dirayaa hooyooyinka iyo bulshaweynta ku nool gobolkan Shabeellaha Hoose gaar ahaan Baraawe inay u tashadaan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa adeegyada aasaasiga ee caafimaadku ka mid yahay. waxay noqonaysaa socdaalkii ugu horeeyay ee halkan oo ah magaalada Baraawe ee xarun u ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku timaado marwada koowaad ee qaranka Marwe Zainab Cabdi Macalin waxaana halkan ka jirtay baahi weyn oo bulshada u qabeen hirgelinta isbitaalkan caafimaad ee lagu dabiibi doono hooyada iyo dhallaanka bulshada ku nool magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. Shucayb Maxamed warbaahinta qaranka Baraawe.